الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسن داوديال دغيستيال meel kastoo adduunka ka joogtaan u soo dhawaada barnaamijka arrimaha qoyska oo si toos ah ugu daawanaysaan Halgan TV live screen-ka iyo Radio Voice of Oslo codka shacabka Oslo Norway waa anigoo ah Cabdinaasir Maxamuud Xaaji Cabdinaasir Qujufa iyo Jamaal Dayman Lul oo ila daadihinaysa barnaamijkana waa barnaamijka arrimaha qoyska waxaan ku soo qaadan doonaa burburka qoyska sababaha keena iyo aan ku falaqayn doonaa insha Allah waxaan ka wada hadli doonaa dhammaan horta waa idin salaamay marka hore bahda Halgan TV iyo daawadayaasha waxa idin leeyahay soo dhawaada waa barnaamijkii qoyska iyo waxa sababa arrimaha burburka qoyska iyo furitaanka markale waxaan idin leeyahay soo dhawaada waxaana naga soo wici kartaan fikirkiina fiibarka iyo Halgan 32 xagga escape-ka waxa ayna ku qoran tahay kor shaashada hadii ay eegto waa ka arki kartaan ku soo dhawaada marka heestii aan ku furnayno furiin oo heesta ay qaado Fartuun Cumar daawadayaal dhageysta mooge oo inoo fadhiya caawa xagga farsamada yaanan iloobin mooge markale ku soo dhawaada barnaamijkii burburka qoyska hore aan idinku sheegnay
waxaan idin leenahay daawadayaal soo dhawaada waxaa naga soo wici kartaan fiberka iyo escape-ka halgan 32 taleefanada kor ku xusan soo dhawaada ayaan idin leenahay aad weyn haddaan kusoo laabano barnaamijka arrimaha qoyska oo caawa aan kusoo qaadan doono burburka qoyska sababaha keena burburka qoyska sida aan la socono mar burburkii dowladdii dhexe Soomaaliya kadib qoysas badan oo Soomaali ah burbur ayaa ku yimaada ha ugu badnaatee dibadda ama qurbaha sida aan la socono ragga badan waxay ku eedeeyaan dumarka inay sabab u yihiin halka ay dumarkan iska fogeeyaan in ay burburka qoyska ay sabab u yihiin haddaba dhegaystayaal daawadayaal yaa sabab u fikirkaaga ka dhiibo sida la socotaanba burburka qoysku waa muhiim lafdhabarka ummadda walbana uu yahay sababta keeni kara arrintaasi ayaan caawa ka wada hadli doonaa insha Allah fikirkiinana aad ayaan usoo dhaweyn doonaa nambarada telefoonada ayaa naga soo wici kartaan ee shaashada ku qoran iyo halgan 32 escape-ka fikirkaagana waan soo dhaweynaynaa waana muhiim barnaamijkan arrimaha qoyska burburka sidii xal loogu heli karaa burburka qoyska ee ku yimaada lamaanayaasha isqaba mar walbana waxaan iga codsanaynaa in barnaamijka aad share garaysaan subscribe garaysaan halo daawadaha ugu horeeya halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة سو دو ولا مقعاقة إيه ماشي أجوكتو السلام يا جماعة أغيي صحيفي عبد الناصر بيكو فرصة يغان كمستر ميموني عدكاس وعدا أقانا أيام فيلا يا سو دو ويام كلها هاي ما صنت عبايديس أنا حاسمي هاي بربر بقويسكو حصوب ميمون ويد عدا هاي تعجي ميمون حصوب sababtoo ah dumarka meesha inay casho kariya laga sugaya meeshaan barnaamijyo ugu qabtaa dumarkiina waqtigaa ka dhaco inla furo xagee ku wareejiyo cashada laga sugayo diyaarno meemo ku mashquulsanay oo haddii uu yahay isla odaygeedana sidoo kaleeta mid la og oo ka mid ah wariyaasha ama maxaan dhihi karnaa oo raalli uu uga yahay waa maasantahay dabaad intaas soo dhawo ayaa ku leenahay laakiin saaxiib micnaha loo fiiriyo abaad micnaha waxaa ka wadaa dumarka qaar ee qoysaskooda waxay ku mashquulaan facebooka telefoonka arrintaas maa sabab waa madhaysa aad iyo aad waa qayb ka mid ah mataqaana aaladda social media qoyska waa qayb ka mid ah marka xaqiiqda loo fiiriyo laakiin asalka baasha markii asalka laga fiiriyo asalka qaldan sababtoo ah jacayl laba maalmooda la isku guursadaa jacayl laba maalmood waxa ka dambeeyana waa garan kartaa marka asalka baasha ka qaldan tahay micnaha qoyska marka hore asalka laga soo saxo oo qoyska marka hore jacaylka uu ka bilaabo bacdi guursaamaha yani guurka jacaylku wuxuu saxan yahay markii labada qofood ay lamaanaha isguursadaan kadib inay isjeclaadaan oo waddadii saxdaa loo maro guurkaas waxaan is leeyahay guurkaas wuu waarayaa laakiin qaladka soomaalida ugu weyn wuxuu ka jiraa marka hore guurka lagama fiirsado rabitaanka qofka iyo muuqaalka qofka unbaa la cabiraa halkaa unbaa haddana waxa ka dhasho jacaylka unbaa isku bedelo si degdega haddana guur marka guurka aan laga fiirsan ayaa sabab u ah colaysku ugu koowaa tan labaad markii qurbaan la yimid dee waad aragteen dumarkii waxbaa loo fududeeyo telefoon baasto wuxuu ka bilaado laakiin la isugu hanjabaa jiro oo dumarka inta badan ay ku bootayaan micnaha waxaa awoodaa la siiye oo dumarka ay leeyihiin oo war aniga weligeeda ima wixeen aniga waxa waaye markii telefoon la ii wacaayo marka horaan baqalad galay ka qurbaan bulshada yaan basiira in on la ii wicin sababta keenaya in telefoon lagu waco in telefoon la ii waco in bacmadow banaanka ii dhigay in telefoon la ii waco labadaas waa ka gaashaamana sababtoo marka horaan guursanaya waxaan guursanaa qof aanan يعني ما تقانا أنا كفكر إني ما تقانا ما كورا يكون حساب أنتو وحياة قربها تجرو أصل كي بطن كذي هاي بطن سومالي دينتي ما تقانا إسلامك
gabadhaas aan marka hore oonaan fiirsana intaan ku degdegin mana ka fiirinaya quruxdeeda iyo qaabkeeda iyo jamaadkeeda iyo maxay inta ka leedahay inta lakama fiirinaya waxaan ka fiirinayaa maxaa gabadhan inta ilaayaa nolosha la wadaagi kartaa maxay reerkaaga kusoo kordhi kartaa haddaad carruur ilaahay kala siiyo maxaa isbedboo carruurtaada ay ku samayn kartaa ilaan waa hooyada macalinka koowaad oo guriga haddaysan hooyada ubadkaaga wax isbedel ku samayn karin macna kuma samaynayso guurkeeda aad iyo aad qof kale daqad fikirkaaga ku mahadsan tahay waa kusoo dhaweynaya asxaabta kale fursadda anoo siinayo waxaan rabaa kusoo gabagabeeyey gabdhaha dhaqankiina u noqda diintiina u noqda waxaan dumarkan kula dardaarmaa raggana waxaan leeyahay saaxib kabikudarir iyo qabyaalad iyo indha adeeg iyo qoota xildhibaan kuraadisa ku mashquulin reerkaaga dhaqo oo gurigaaga ku mashquul aad u mahadsan dhiibaan maadaama anigu soo tusaale qaatay burburka qoyskiina aniga mas-uulka ah laakiin wuxuu diiday hal mar inaa police stationka aniga kasoo waday dhiibaan aad ayaa umahadsan tahay aad iyo aad ayaa kusoo dhaweynayna fikirkaaga jamaad iyo saaxiibkeeda cabdinaasirna aad baa ii salaamaya siyaasi daawayaasha xamdi qalinta ugu horeysa iyo shukri علي عيسى والسلام يا وسنتي. هلو السلام عليكم قفكم كحجة نوراني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب كسر برنامج كبربر كقويسك. هلو نوراني. وكل ما تخفى واني سلام دمانتي بعد ألقى تيجي. مثل ميد ayaa wada ku soo marnay saacid waanu ka qaadnay aad baan isagana dhamaantiin waxa qoyska burburka keen waxa waaye qofka markii oo qurbaha soo galo waad og tahay dalka waa laga soo tagay diiniyan markii dalkeena waa Soomaali markaa joogno waxa waaye dumarkii waa ka dambeey jireen ragii laakiin waxa waaye maadaama Yurub la soo galay hadda waxay aaminsan yihiin dhaqan gaala la soo galay dhaqan gaalada ay qabsadeen marka burburka dumarka sabab ma sababtu waxay u tahay waxa qofku markuu kalsooni ugu qabo kalsooni ugu qabo way fiican tahay in iska kala dambeeyo oo diinta islaamka oo macnaha xaq laga laakiin dumar badan waxay ku eedeeyaan ragga inay ka dambeeyaan burburka qoyska oo ay mas'uuliyadii ay gabeen qoyska oo ay badanaa fadhi ku dirir iyo waxyaabo kale maqaayadaha iska fadhiistaan halkii laga rabay in guriga u yimaado arrintaas maxaa ka leedahay nuurani inta qofaa waa dad waa iska dareemi kartaa qofka markii uu shaqeysanayo waa macquul qofka hadduu shaqeysanayn oo sugayo cir uu sugaa dhibkeeda leedahay laakiin qofka markuu subax ku tashanayo awlaada ka dambaysa mustaqbalka uu ku tashanayo markaas waa iska hor imaad ilmaha ay leeyahay taas صح nin walbana ma dalci kara macnaha xabadiisa ku imaan karo وهذا فيلم ولا عامل كسر بدرجات. هذا ما سنتي فكرة. هذا ما سنتي فكرة هذا. دوينك لك. علي أوكي. وعليكم السلام ورحمة علي سودو ماشي عكسو هذا سي مقع هو مقلنا هاي. ما شاء الله سودو. ودوحي برنامج عن بدن الراديو ودادين الزرورة الله يدين دوري الكسر ذيك السلام عليكم. أنا ونصيده كلامي لما أيانو هوذا قوسو مرينا. waxaan saaraya anigu wada horta eeda awalan waxaan leeyahay waxa qalad kale oo keena burburka qoyska da istifaaci maayo una laakiin xaqiiq siday aniga ila tahay haye siday ila tahay dumarka aan leeyahay qaladka okay waa ka diiday aniga ma sababta ma sheegay iyo ku qeexayeen waxa weeye awalan maanta markaad gabadhii wada sheekaysataan ee isla gaadhaan heer guur ama wase mustaqbal baan samaynaynaa aad isiraadaan awalan gabadhii waxay ku weydiinaysaa gabdha ma kula dhashay bay ku odhanaysaa adigan arrin guur rabee gabdha ma kula dhashay bay ku odhanaysaa haddaad haa ku tiraahdo waxay og tahay guurkii doorta dib u yar dhiganaysaa waayo waxay og tahay in gabdhaha kula dhashay ay yihiin kuwa hadhowyada mustaqbalkeeda iyo guurkeeda u baabiin doona haddaad ku tiraahdo gabdheelamay dhalana wada wiilal baan nahay guurkii arrimihii way kula yar qaadanaysaa way kula soo dadejinaysaa mar labaad waxay suuragalay inay ku weydiiso hooyadaa ma nooshahay waa sheeko dheer hooyadii way nooshahay aad ku tiraahdo
sidoo kale in yar waa dib bay u noqonaysaa laakiin dad ku tiraado way dhimatay allah u naxariistay odhanaysaa xaajiyadda iyadoo ilaah uu garan karo waxa gabadha qalbigeeda ku jira hadday hooyada noolaan lahayd waa arrin aad iyo aad u fool xun oo laga xumaado in uu qofka ku fikiro inaynan waalidka iyo walaalaha aynan doonaynin balse adiga ku doonaysa waxaanse kula talin lahaa inay jeclaadaan sida ay u jecel yihiin xaajiga walaalihiis iyo sidoo kale maamadii oo soo korisay oo intaasoo sano soo haysay marka waa wax laga xumaado walaal waa runta dhinaca kalena walal hadda jabuuti oo kale waxa dhacda labada qof 7 sano ay wada soconayaan 7 biloodna way isku furayaan because of macaankiiba waxay ku dhamaysteen intay wada sheekaysanayeen waa ku mahadsan tahay fikirkaaga marka waxaas daawadaha cali taas waa ka diiday cali odayaashu meesha ku jira laakiin jabuuti dad fiican ku jiro wadan dhan maxamed way ku jiraan laakiin jabuuti oo kale 7 sano waa la wada soconayaa maxamed annaga aqoon ma lihin kullee 7 bilood gudahood baa la isku furayaa waayo 7 sano la soo wada socday baa lagu laastay wixii la kala qarsanayayba laakiin markii si maxaa anshaxa loo sheego jabuuti dad muslim waaye waa dad dhaqan lagu diina soomaali waa laga helayaa dad dhowr badan socdo waqtiyo badan wada socdo oo haddana waqti yar isku furo waa laga helayaa waxaa kaloo jirta labada qof horta waxa kaloo baabiye walaal haddii aynu dhabtaan laga tegin waxa baabiye waxa weeye labada qof markay isbaranayaan mid walba kale wuxuu u soo bandhigaa intii uu wanaag lahaa jabuutina ma caayo waa dalkeennii waa dalkaygii qaraabada inta ugu badanna way ka degan tahay laakiin labada qof maxamed markay isbartaan laakiin aniga barashada cali barashada ma diidanaan waxaan diidaa qowmiyad dhan inaad sharafta laga qaado la dhowray jabuuti saas u dhaqmaan taa waxay nagu tahay muusama walaal maxamed aan usoo noqon waaye halkan baan usoo noqon labada qof markay isbartaan maxamed labada qof markay isbartaan midbaka kale wuxuu usoo bandhigaa intii wanaag u lahaa buu usoo bandhigayaa markay ishelaan ay iscalfadaan ay guri wada galaan labadooda mid ka mid ah hadduuna wanaagba u dhalan miciyii u qarsoonaa ula soo baxaya ama aniga barnaamijka maxato dadka waxaa mas-uulka ah juqufay ana waxaan diidanaha maadaama xariiryaha tan aniga maanta haddaan dhaho somaliland waxaasaa ka dhaco miyayna qalad ahayn caliyow haddii reer jabuuti dhan aniga ariga meesha ka dhaca keliya inaan maslaxaan rabaa reer jabuuti inaynan 7 sano isla soconay ay isku furaan haddaba cayiga ma aha maxmed anigana cayiga ma aha walaal mana cayo reer jabuuti intii codkayga maqlaysa intii muuqayga garanaysaba isla imika aan qadka ku jiraan raali gelinaya walaal maxmed bas intaa keliya aniga naqabda saxaafad weeye meesha marka ari qalad inuu naga dhaca dida cali bas reer jabuuti keliya ina magaca aan ku soo laabana barnaamijka cali aada ma santaysa dejiya halo daawadaha xiga halo kusoo dhawo barnaamijka burburka qoyska adigoo magacaaga ku bilaabaya meesha aad joogtid magacayga waa dheer waxtugaswiil ahmed kasoo hadlaya okay fikirkaaga gudub fikirkaygu waxaa yahay hortaa labaan marba idiga kulmaya burburka qoyska ugu badnaan xagga qurbaha inkastoo dhalinyartu imaka si xooga isu guursato dhalinyar ahaan anigu aan dhalinyar ahay markaan ka hadlaayo intaan aqoonteeda ah hadda ay tahay dhalinyarta isguursanaysa wixii iga horeeyay wixii iga dambeeyay aniga la iga yahay dabcan dhalinyarta iyagoo yaryar bay isguursanayaan waxoogaa baa la wada soconaya xiisa ay isu geynaya hadhowna waa dee qoys guurkii waxaa laga dhigayaa guurdii qurbo la isku guursaday waa halkii la fooleen okay daawada sida rag badan ay ku eedeeyeen dumarka ayaa sabab dhahay burburka qoyska adi fikir ahaan maadaama aad tahay qofkii ugu horreeya dumar ah fikirkaaga qayb lixaad lama rag way ka qaadanayaan run baa la isu sheegaa mise be runta dumarkoo kaliya eedayn mayno waa labiyo dhadig waxa weeye ragguna way ka qaataan rag xun way jiraan rag fiicanna way jiraan dumarka way jiraan dumar fiicanna way jiraan marka waa la isku lamaaya waa la eedayaan dumarka lala saara dejiye kufnay dacnay malibaano dumarkeena masuulka anima qaada okay dejiye maxaa xalka marka wuxuu yahay anigu ray ahaan waxaan bixin lahaa in qoyska labada qof markay isguursanaan si garasha ku jirto aqooni ku jirto oo la isu guursado oo reerka loo wada dhaqmo
waayo labada qof midna uma fiicnayn ninna gabadh intu iska soo kaxaysto hadhow furo mustaqbalkii ka xumeeyo inantiina inay nin iska guursatay iyaduna markaas waxaan odhan lahaa lagu daro caqli iyo aqoon lagu daro guurkii marka qofka guursanaya ama gabadh guursanaysa ama nin gabadh guursanayo oo aad u weyn see looga hortegi karaa burburka qoyska ee soomaalida kusoo batay labada qof ee isguursadoon baa ka horjeeda shakhsiyad kale ma dhacdo shakhsiyad kale kama hadlo waa ku mahadsantahay labadaa qof unda muhiimadooda una ka wada hadlaa aad u weyn waa isfahmaa goorta isguursanaya ka hor intaanu burburin maasha allah maasha allah aad iyo aad u mahadsan tahay fikirkaaga saliimka dhegeystaha xiga daawadaha xiga halo okay jamaad waxaan ku jirnaa barnaamijkii burburka qoyska dad badan rag badan way iska fogeen aadii dumar badan way iska fogeen inkastoo annaga aan dhexaad ka nahay waxyaabaha sababa dadka qaar waxay ku eedeynayaan ama sabab ugu dhigaan bilowga nolosha ama hasaawida bilowga in laga been abuurto oo dadka qaar ay been isku sheegaan oo nolosha markii ay runta timaado xaqiiqada ay timaado dhegeysto daawada kusoo dhawow barnaamijka burburka qoyska adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo meesha aad joogtid halo السلام عليكم شرف له. هاو adiga السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. codkaaga kor u qaad walaal مستري والله معانا نص هذا ياكل شو بعد هذا maasha allah kawsar soo dhawow ما عنده ولا ما عنده ما في ولا كلام يهمي وعم بعد لا هاي وكا قادم هذا ولا يدرم ليه fikirkaaga walaal شو شو عندك haddaan ku maqlayna wax yar codka kor kawsar ma la socotay barnaamijka ها والله صار ولا hore u gal fikirkaaga walaalo والله ولا معايا تذكر قدان يضو كل واحد أنا قرن ما يقف فعل أي ما قدر تجيب ما لو هو عن ملاك يعني كل واحد بقيس كواك قيس إنسان كلايا صح labada dhinac قولي هردو أنا وحكي حتى أنا لا وجدي نكا كل بدنا اللي يدو كاو بدنا okay هركا okay maxaa sabab u ah sababta maxaa keen adiga fikirkaaga كل والله كل الدنيا دول بين كلامه كل دول كوكا وهم كنا كده way joogaa dalkii waa kan loo soo marnay markaan qadaya qiimeeyo xaado waxa ka dalkii ciidii hooyo waxa u badan baaran la burburka ragga halka ay joogno ku dhigeeda dumarku saameyn bay leeyihiin burburka okay marka la isu soo hadeeyay la labadaba insha Allah amiin okay sidee loogu bixi karaa burburka qoyska wuu batay maxaa xal leh maxaa fikirkaaga u malaysa والله waxa lagu bixi karaa maturity qoyska dhistaagkiisu wuxuu ka mid yahay diinta islaamka aad u weyn ilaa inoo dhowra tiirka inoo adkeeyo waxaa dhan laabtaa labada qof ee isguursanaya waa inay labaduba xagga salaada iyo cibaadada qalbi ay ka sameyn yihiin صح waxaa laga yaabaa waxyaabo kale in isku tusaaleeyo qofka dhinac cibaadaysta se ilaahay ma ku xidhay si xiriirkii ilaahay tooma hayaa qof adigana ku dhici kara midkiisana wax tari kara dee diintiisana wax tari kara miyahayba ayaa meesha ku jirta in la qiimeeyo sida dad badan ay qiimeeyaan qofkani wuxuu qurux badan yahay iyo qofkani dooqaaga u weeyaan iyo waxyaabo dee aan meesha ku jirin صح markaan waxaan odhan lahaa allah isfiray waxaan odhan lahaa dee balguriga gurya in badan baa soo duntay noqona laga qabtaa odhan lahaa soomaali meel kastay joogtaba maasha allah waa ku mahadsantahay fikirkaaga saliimka ah markana aan siino dhegeystaha xiga iyo qadka xiga ee daawadaha xiga halo السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة سو دhow walaal magacaaga iyo meesha naga soo wacayso ما شاء الله والله دوهي تمام وعن سلام يا أخيار برنامج تطبيق waanu kaa qaadnay وبلال وعن الصوت معايا في سوريا runaaantii barnaamijkan waa loo baahnaa mid yani aad loogu buka ayuu ahaa fikir ahaan waxaan qabaa in insha allah billahi kariim aad taxal nooga dhigtaan waxaa laga yaabaa in ay xalal badan ku samoowaan mareero badan qoysas badan ay amirqaad kaga qaataan ee maad badbaadaan insha allah billahi kariim waxaan anigu ahaan shaksiyan maadaama nin rag ahay
haddana anigu aanan difaacayn ragga haddaan fikirkayma afkaartayda aan ka dhigto anigu run ahaantii waxaan eedda saari lahaa dumarka sabab gabadha hadda walaashii iga horreysay maasha allah waxay ka dhawaajisay erey ahaa in qoyska burburka uusan ku salaysnayn qaaradda yurub ama qurbaha waxtaa saameeyey kuwii dalka joogay ee soomaaliya run ahaantii haddaan labadaas kala qaado aan ku bilaabo kuwa qurbaha joogay cilada ugu weyn ee problemka mushkiladda ah waxay tahay markii hore ee la isguursanayo ayaa waxaa la isu guursadaa most of it majority badi waxaa la isu guursadaa interest wax la yidhaha iyo dadkii aan markoodii horeba aanan samaysanayn wax la yidhahda agreement يعني agreement waxa waaye heshiis oo labada dhinac wax ka qalan mustaqbalka inta ay kala dhigtaan ay isku og yihiin yani beritoole qof kale ugu yimaado meel ugu soo bishoon kara ay jirto iyadoo laisku soo boodo soomaalida waxay tiraa camalka geedka kortid orada ku soo degay waa isku soo boodaya xiiso jaceyl oo beenbeen ah iyo bug walba trust gooni wataa waa isku soo ordaya hadhow waa kala yaacayaan problemku weynkaas iyo cilada kale si salayso waxay tahay qurbaha derbigan mashiinka lacagta laga baxay derbigan mashiinka lacagta laga baxay yani dadka qoys badan oo arkaysa ama arrimooda aad maqlaysa ama ka dhex galaysa ama maaragtay xalin maaragtay xalisa ogtaysa badan dadku waxaa arkaysa inuu qabsanaya sunuudkeeda waxaan macno lahayn qoyskaas dhan wuxuu ku burburayaa sunuud aanan macno lahayn qurbaha aniga waxaan qabaa taas oo cilada ay keentana ay taas tahay most of taas oo dadkii oo aan haddana markoodii hore saan kuu sheegaba agreementkoodii ama heshiiskooda uu yani aada u daciifsanaa taasaa keenaysa dalkii soomaaliyana run ahaantii gabdhihii dalkii soomaaliya joogay waxay fiirinayaan gabdhihii qurbaha joogay ee yurub inay gabadha si fudud waxay leedahay iblaahi baca banaan ku dhutay yani way saamaysay yani arrintaas ayay saamaysay hamiga qurbaha ka jiro ayaa ayagana saamay ma garan ani taasaan qaabto fiican waxaa looga bixi karaa isleeyahay ma la dhihi karaa soomaalida keliya ayay ku kooban tahay midda xagga dhaqaalaha maadaama wadamadan aan joogno ee dadka degan ama ku nool ay isku darsadaan labada dhinacba xagga dhaqaalaha guriga ama ay qaybsadaan soomaalida oo keliya ayay gooni u tahay middan ah xagga isku qaqabsiga dhanka dhaqaalaha guriga iyo waxaas iyo familka iyo lacagaha loo diraayo iyo barbalemka ugu weynna uu taas sababay oo ka dhawaajisay waa runta abaayo runtaa waa fili waxaa la yidhi meel laga ilaahay haddaad timaado waa siltiraa meel laga ilaahay haddaad timaadid waa siltiraa yani qurbahanaa nimid yani waxaa jira waxyaaba badan oo nidaam oo wanaagsan laga qaadan karo iyo waxyaaba badan oo laga fogaado oo ficilo xuna يعني أردت عندك كنا واجد شكر وأريد very positive وأنا أركي والله العظيم قسم بالله طبعا أنا قاعد صاحب الله هاي وإلهي كبد بادي نظام كيف كبد بادين وحياة شكلها كبيرة إن فرشة سميستي هو البطل وشوكرا واشقية أما قبل واشقية أما الناس مجين حبايب قالتا الله يقولون نو البطل قال نك طبعا مسؤول واي كل أسام مسؤول كا أبي كل أسام مسؤول كا ويعني ولايات أساس صارنتها لكن اللي اسكبوا حسب سماية لكن إن لو حلسلوج يعني شعب أسخب كم سنة قبل أن فيلي لوسي حرية ده independence لو درسي إن توقف حرية كار كده إذا مدام كده هوش هذا وقته أصلاً السلوك كله بس مركب كمادو وضيق أوكي كيسيسا إذا نكيس هذا كنتو بس خدوا هذول لا يقولوا يروح إما لودي يقولوا هذي بريكم على وقوس مسؤول وضيق يقولوا هذي الله بعد أسيبه يشاكل ده وأبو ذلك مركب تاست بعد واحد عم يسرع إنه سنيك مركب نيو ناكسيا إنه تاني أوكي تمام كلام بعد بحسب برسام مسؤول عن جوا تمام كلام بحسب أنا تمام بحيل لبعض هم يكون ما تمام كان بحسب حرب الجواد هذا وأولده وحاسك وجواد فدح وجواد يعني أولاده كل شيء حرب أنا حوار على مال كعيش كل لا سبيشال أجيس حوار شيء رومانتي أو شو أشياء شوبين أو شو سميس وجاب كاجا كاسبو غونيا هذا أكثر من هذا وفير بوستيف أنا أمسيه ولا بالبالة هذا ما سنتين مع حل مرك حلك اللي هو هرتي كرا بربر هذا سوق كوباي لقيستيال بدنا إن شاء الله كنا سوق كوباي حلك وحواي أنت أنا فلك في رسالة
marka hore la guursanayo gabdhahan waxaan ku dardaarmaa gabdhaha walaalayga waa gabdhaha Soomaali waa kuwa ugu qaalisan kuwa ugu qanisan kuwa ugu karaan badan wallahi maasha Allah waxaa la rabaa gabadha walaashiina tan dardaaran bay tahay ninka laga walaashiina taas ku dardaarmaa صح inta la isguursan ana waitress oran marka hore agreement saxiix halagu heshiis saxiix halagu heshiiyo wax meel la isla dhigtay baritooda lagama halaaba sida gabadhii ka horeysayba ka dhawaajisay waxaan leeyahay ilaahayna la gardaro barnaamijka awdaan barnaamijyada kale ayuu ummadda Soomaaliyeed waa mahadsantahay Bilaal aad iyo aad inta aan u gudbin qadka kale bal marka hore aniga adiga aan ka hadalno sidee dadka waxa u jeedaa dhamaan inay isku raaceen in ah heshiis in marka hore la sameeyo gabar baratay markeedii hore markii ay ku nooleed dalkii in la biilo oo subaxii ninka uu baxo iyadana ilmaha kaliya ku koobnaatay iyo guriga maanta inta hadii la imaado hadii la yiraahdo qaybtaada bixi biilka ama kirada sidee ay ku ogolaan kartaa ayaa isleedahay Cabdi Naasir okay waa mahadsantahay Jamaad sida uu Bilaal iyo adiga ka dhawayseen mas'uuliyadda qoyska marka la yimaado qurbaha oo kale dadkan aan nimid xitaa way waxa la yiraahdaa literal agreement jira heshiis laba dhinaceed labada qofna mas'uuliyadda ay qaataan sida la socotid qoyska ama ninka ama naagta ama labadaba wax dumarka waxa la siiyaa waxay qaataan sunuud ama dhaqaale labada soo gasho waxyaabaha keena burburka sidoo ku dhawaajiyay rag dadka badanaa daawadayaashaba waxyaabaha keena dhaqaalahaas ayaa la isku dagaalaa oo keena marka waxaa fiican in agreement ama heshiis labada dhinac ay wada qaybsadaan mas'uuliyadda dhaqaalahaasna la wada qaybsado inkastoo dumar qaar sida adiga ka dhawaajisaba ay ogoleen dumarkii la biili jiray dalka Soomaaliya mas'uuliyadda ay dhaqan u malihin صح marka daawada ku jira weydiinayna fikirkiisa daawada ku soo dhawaad barnaamijka burburka qoyska adigoo magacaada ku bilaabaya meesha joogtid hello السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسو دو برنامجك هلو adigoo magacaaga ku bilaabay meesha aad joogtid magacaygu waa Xamdi oo joogta dalka Uganda okay kusoo dhawaad barnaamijka maasha Allah barnaamijka burburka qoyska fikirkaaga ما شاء الله وبرنامج أدوار سنة هذا بربر كحدي لا نجا فكنا خير من خالد بيكليه دمر كنا خالد بيكليه لا بدنا نعبو واي اسمع الصواب وين وحصل تمرك هو لا يمكن سنوات ومركز الجسنا يوم ما هو رأي تعلي وكل لا وحاكي سهل دعيد ولا دليل وكلام إنه إمامة ومركز هو كيف يصير gabadhan ay ka fiirsato guurkeeda muddo ee la tacaasho ninkan oo markaas uu ku fikiro waxaa isdhihi karaa meeshaas waxaa ka imaanayo wanaasho wanaagsan ka imaanaysa laakiin waxaa arkaysaa wiig dad Soomaali isguursadeen waayo qofkan u fahmin dabiicadiisa jawigiisa adigoo fahmin asigan oo si fiican oo ku fahmin waa isguursadeen wax ka imaano waxaa ka imaanaya khilaaf aad u weyn macnaha degdega la isku guursaday oo weli lama dhadhamin sheekadii iyo hasaawidii iyo marka arrintaas ayaa sabab aad weyn kaalinta ayaa mideeda kale haddii ay gabdhaheena dhaqanka dhaliilaa waxay tahay haddii ay kasoo baxaan marwada la qabo guriga joogto waajibka lagu leeyahay haddii ilmaha ahays caruur ay dhasho kale barbaarinta caruurta ay kasoo baxdo si waajibka uu ku leeyahay ma malaynayo ninkan oo kusoo baxo asna xaaskiisa farxad ee ku leedo oo waqti siiyo oo jaalis oo xaaskiisa ku farxad geliyo oo siiyo uma malaynayo meeshaas noo khilaaf imaan karo ما شاء الله aad baa u mahadsantahay fikirkaaga waanu soo dhaweynaynaa ما شاء الله markan aniga haddii aan ka hadlo fikirkayga waxaan oran lahaa aniga waxaa jira wax la yiraahdo xiiso ay Soomaalida badan ay yaqaanaan marka waxaa isleeyahay gabadha sida ay hadda ay ka dhawaajisay waxa ay leedahay wiig kadib waa la isfuray ma la dhihi karaa taas xiiso ayuu ku salaysan yahay mise guurka degdega ayaa sabab u ah ayaa leedahay xaggaada والله fikirkayga markaan dhiibto bilawga sida wax walba bilawga beginners bilaw wax walba ma arkino marka haday toosneen way qaloocanayaan sida hadii xiise ay noqotana way burburayaan maxay xiise iyo xunba way dhamaad marka waxa fiican wax walba in basiga
ama aasaaska laga dhiso noloshana qoyska waa muhiim waa asaas in la dhiso runtana la isku sheego oo dadka sidaan la socono dadka qaar waxay qabaan in been la isku sheegin sababta ay runta u timaado markay runta ninkii dumarkii iyo raggii markay isguursadaan gurigii ama qoyskii la bilaabo inay runta imaado oo beentii laga soo tago banaankii marka waxaa fiican micnaha waxaa ka wada mahmahdii ahayd naag been baa lagu soo xirigeliyaa runna waa lagu dhaqaa may taasi waa qalad aan qaba fikir markana aan gudubna qadka xiga iyo daawadaha halgan TV fadlan daawadayaal idinkana share garee barnaamijka like subscribe haddii aadan ka ahayn xubin page-keena halgan TV waxaana idin leenahay si ay idinla daawadaan dhageystayaasha kale ama daawadayaasha kale sidoo kale idaacadda Voice 99.3 waa nagala socon kartaan halgan 32 oo escape-ka ah waa nagala soo xiriiri kartaan daawada ayaa ku jira qadka yomana daawada ku soo dhawo barnaamijka arrimaha qoyska burburka qoyska adigoo ku bilaabo magacaaga iyo meesha aad joogto السلام عليكم مرحبا وهرة سؤال من السلامية مرحبا وماكعي وحان تكون هاي كلاسكو اوكي كسو دو برنامجك فكر كاغا محاكا برنامجك ما لا سocotay xogo waa la socdaa waxaan ka hadlaynaa arrimaha burburka qoyska waa la socdaa abuu xogo waa la socday runtii fakarkaygu wuxuu yahay ninka iyo naagta qof qaladka hal qof kaliya in la jaaj gareeyo maaha oo qaladka la saaro seen beri qof inuu hawshii guriga dhisnaado uu guriga socduu rabaa qofna waa qof aan fakarkiisa ku filnayn oo go'aan emergency qaadanayo oo kaligiis go'aan iska gaarayo guriga wuxuu ku wanaagsan yahay labada qof inay wada tashtaan qofka bashar waaye wax uu qaldi karaa mise adiga wax saxday qofka kale oo kula nool qalad uu arki karaa waxa adiga samaysay laakiin markuu qofkii qaladka arko inaan la boodin aanan qaylo iyo dhibaato ayna dhicin in la wada fadhiisto la dhaho waxaan way dhaceen see ku dhaceen maxaan ku xallin karnaa markaas xal waa la helaa laakiin qofkii hadduu qofkii kiiska iska waalo iska boodo iska qayliyo oo reerkii kasoo qaado gabadhii furuun lagu jiido horta markiista gabdhaha dhibanayn sida aan fakarkeyga qaba waa waxay dhibano ku yihiin gabadha markay guursato waxay u guursanayeen inay hooyo noqoto reer ay haysato markay hooyadii iban ay laba saddex dhasho mise halba ay dhasho bini aadana la yahay carabkii ilkahaba way isqabtaan ninkaaga isqabataan hadduu ninkii iska dhaho easy waa ku fura gabadha waxay ku noqonaysaa wax aan u dhimtamaynin inkastoo ay leedahay okay ifur feerma jabays way leedahay laakiin haddana ma aha hambi inay ku tahay because aniga fakarka iyo runtii flowga gabdhaha ma jeclo aniga ma jecli gabdhahana waa aniga ama okay daawada ragga qaar waxay ku eedeeyaan dumarka in ay mas'uuliyad ka leeyihiin maadaama markay qurbaha la yimaado ay mas'uuliyadda dhinaca dhaqaalaha la isku dagaalo oo dumarkana ay dhaqaalihii badana dhaqaalo la siiyo oo raggana dhaqaalo la siiyo dhibaatada ugu badanna ay keento dhaqaalahaasi in la isku dagaalo dumarkana ay sababaan ay dhahaan ifur ayaga ay yiraahdaan dalbadaan okay abo taas midaan kaa dhaha adiga shanta farood ilaahay uu ku siiyo masimayni may bini aadanka saas waayo shantaada farood sida ay yihiin basharkana uu yahay waxaa arkaysaa gabadha ninkeedii xoogaaga ay soo qaatay iyada gacanta asaga ka saarayso xoogaaga ay gacanta ka saarto oo ay tiraahdo walaalow ilmihii anaga ku habay inuu qamaar iskaga dhiilo gabadhi meel kale wax u raadisa aanan lahayn markay qaylisana feeraha inuu ka tumo waa ku furan dhahay gabdha saasaa ifka saaran oo yurub joogo xoogaa yarka gaalada laga qaatay wax weyn moodo oo ninkii ku cashuursa iyo gaalada ay ku siiyeen ku gumaysa dhahaysana way jirtaa dadka ilaahay uma isku fakar ma aha isku aragti ma aha waxaa jira qof adiga waxa kula saxan qof uu la xun yahay qof garanayo ninkaa inuu ninkeeda yahay ilaahay ka soko mas-uuliyadeedii u hayo waxaan gaalada ilaahay ka siiya wax ka badan ay ka dhaxeeyaan awlaadaa ka dhaxaysa guuraa ka dhaxaysa diinaa ka dhaxaysa akhlaaqaa ka dhaxaysa luuqadaa ka dhaxayso macaan badanaa ka dhaxeeyo marka ma aha keliya inuu qofka qaar dadka qaar ma fiirinayo aan socialka uu dhiiba iyo guriga ay siisa ma fahamta daawada sidee arrintan ugu bixi karnaa mise ugu hortegi karnaa maadaama oo dadka soomaalida ay kusoo badatay burburka qoyska oo carruur badanna ay mustaqbalkoodii ku waayeen oo beerta galaan taasna ay sabab tahay hooyadii iyo aabbihii mas-uuliyadoodii ay waayaan maxaa sabab maxaa xal xalka
fikirkaaga maxaa xal leh oo arrintaa looga hortegi karaa أبو حلقة وحلقة إلهها هايو إلهي صومالي مصر غير قبها أسود تجي لكن أنا حلقة وحلقة إن ابن آدمك جماعة تمرك هو رئيس جورسا هايو نسافر من كهذا بقى إن يفيريان جورك إنه لو حفظت هاي لبضة وضبا أنت قف كستبا نعتنا نس سبكو أنت بلابلين أو طبيعتي كسيني نكن هو جبر عصب بلابلها إن لبضة وضبا شيطان كإسكان ناران حتى إسقطان حتى Charles 4 days 5 days ليس سيو جورك قف كستبا دين عيسو وكجوجو شن بركض شيطان كإسكان نارو قف كستقف ككله قف أو ملاينا يبنوا أسجع قلتنا آب وكل هذا إنه قف ويرو هبيج عشان عن إن لصميو قف جوي الأسلوب بدل صح هذا وين وكم أصلا تعرف فكر كاغ سليم كا ما دام نقول بدين داودياش هذه يوم ما صنتها هذه يوم ما صنتها هلو داودا حاجة هلو سودو هلو داود كسودو برنامجك بربرك قويسك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته داود كسودو برنامجك بربرك قويسك أديكم مقع كوبلاوي ماشي أجوكتي نيروبي ولا العدك كرمو قادي كرتا وحير ها ولا قاعد كرامي مقليسي هنيش وهذا كم مقلنا قال فكر كبربرك قويسك ما حصل waxa wala sabab u ah ninkii inaagtiisa markay kala dambeeyeen nolosha ka fiirsan aad u dhibaadan aad waxay kor codku qaada dhageyst daawade hayo wala qaadi mi maqlaysid ma kor waxay u qaad daawadayaasha kuma maqlaan walaal annagana uu nagu hooseeyaa codkaaga fadlan kor u qaad adoo raalli ah hayo walaashay u qaadaya wala waxaan ka qabaa midka jiro wuxuu yahay waqtiga iminka la joogaa waxay tahay dadka diintiya ku yar ninka waxa laga rabaa naagtiisa inuu si wanaagsan ula dhaqmo naagta ninkeeda si wanaagsan ula dhaqmo burbur waxa keenay kalsooni darada صح maxaa kula talin lahayd fikirkaaga يا حبيبتي fikirkaaga maxaad dhihi lahayd sidee ayaa lagu badbaadin karaa qoysaska burburay marar badan dhibaatada hadda nagu soo foodle iyo midda hore u dhacdayba oo aan ognahay inaa ilmo badan gaalada u gacan galeen ama qurbaha dhibaatooyin aad u fara badan ay burburka qoyska dartiis ka dhasheen maxaa adiga kula talin lahayd dadka Soomaaliyeed aniga waxaan kula talin lahaa waxaan dhihi lahaa ninkii naagta markay isguursadaan oolaadooda inay xafidaan ninkii naagtiisana isxafidaan ilaahay wada xafidaan dhihi lahaa walaashay ما شاء الله aad ayaa u mahadsantahay fikirkaaga hay السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله daawada kale هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته halka aad naga soo wacaysay iyo magacaaga adigoo ku bilaabaya marka hore wala codkaaga kor u qaad haye annaguna waa kaa qaadnay mid taa lamid ah ayaanu hawada kuu soo marinaynaa sidoo kale wala nahanilay marka xigtay ilaahay boqorka mahad walaahi barnaamij fiican oo aad iyo aad u xiiso badan baad daadiinaysaan ma sha Allah ilaahay ku garab galabaan xiyaaka ku wada aamin dad Soomaaliya kulay waxyaabo ka dahnaa inaad ku qaataan oo filayaa marka walaahi waxaan arkan karaa walaalin buuxa qoyska rag iyo dumar labadaba sababta way u leeyihiin waa ay ku jiraan ilaahayna la isku xidho marka hore ay isbaranayaan waa inay shuruudo iyo dee waxyaabo badan meel dhigtaan ay soo dee wada rafiiqaan ay noloshooda qofkan ku kufay karaa san ku dhaqi karaa in la eegaabo qurux badan baan ugu leeyahay صح fakaleeto dee markaynu dalkeena joogno dumarka Soomaaliyeed oo weliba la hadlayaa qurbaha jooga waa gar dalkeena gabadhu waxay sugi jirtay wuxuu ninku ilaahay daninkeeda ugu soo dhigo oo dhammaynaa shaqaysanay caydna maynaan qaadanaynin waa صح ninka arkilaahay baan naqaanay صح walaal waxaan waxba ahayn qoysasku ku burburaan ma qurux badna takaleeto dal shisheeyaa la joogaa dalkeeni marka joogto ninkay gabadha hadday kala tagaan hooyada hadday ilmaa qaadato iyo aabbo hadduu ilmaa qaato dee iyo haddii faham intaba waa lahayn karaya laakiin dalba shisheeyaa la joogaa waddan gaaleed baa la joogaa ilmaha dhaqankiisa waa la luminayaa gaaladu way ka dhex faa'iidaysanaysaa ilmaha iyagoo hadday isqabsadaan way ka dhex qaadanayaan ha la eego ha la isku
okay daawad sidaa la socotid ba maasha allah daawada sidaa la socotid waxaa kusoo badanaya marka dadka soomaalida burburka see ugu hortegi karnaa arrimahan kusoo badanaya xal maxaa ah fikirkaaga wallahi xal walaal waxaan odhan karaa dee aniga horta markuma guursanin qurbahoode way iga dhimantay waxyaabo badan oo aanan weli taas jubo keenin baa dee jirta laakiin anigo aantaa ka arkaayo dee dad badan oo wada dhaqmaya ama ku wada jira marka wallahi waxaan odhan lahaa dumarka soomaaliyeed majority dumarka marka qurbaha la joogo dalkii marka la joogo dumarka way ku dayacnaayeen in badan baa ku dayacnayd halkan laakiin marka la joogo waxaan odhan karaa ama dumarka majority dee qaladka anigo aan saari laa dumarka sabab ayaa u saartay ninku reerkiisa uu shaqo tegi jiro weligiiba ninkaa mas-uul ahaa laakiin mas-uulkii mas-uul gaara la wareegtay oo waxyaabo badan oo jaafaajiro qocaydhaas ay badan inuu saameynta u badan keenaysa baa odhan lahaa hoosna loo maxaa ku talin lahayd marka adiga ee fikirkaaga ugu dambeeya wallahi walaa waxaan ku talin lahaa fikirkaaga ugu dambeeya marka rag iyo dumarka marka u horeyso waa in kala eegaa labada qof qofkan ku dhici karaa mise kula noolaan karaa horta marka hore in la yidhaahdo marka xigta dee wixii adduun ee markaa meesha yaalla dee gabadh ninku isagaa reerka ka mas-uula gacantiisa sugto oo isagoo eegto oo galuu sida ugu taliya ay wada tashadaan wax la iska meel dhigaan anigu odhan laha sax waa run waa ku mahadsan tahay daawad fikirkaaga saliimka waa kaa qaad anaguna waana kaa qaadina sidaa la socotid jamacad burburka qoyska wuxuu sababay caruur badan inay dhibaato ama mustaqbalkooda ay ku waayaan maadaama ay guriga ku qurxon yahay ama ay xabsiyada galaan ama beerta ay galaan ama xabsiyada ay galaan maadaama ay waayaan mas-uuliyaddii aabihii iyo hooyadii ama ay ku biiraan qolooyinka tuugada iyo sidaas oo kale maadaama hooyadii iyo aabihii labadiidii ay waayaan ama aabihii meeshii uu ka baxo ma ciyaalkana qaar waxay ka baqaan aabihii oo mas-uuliyadda lahaa dumarka badanaa maxaa kula talin lahayd maadaama dumarka keligood ay mas-uuliyad qaadi karin oo ciyaalkana ay ka faa'idaystaan maadaama aabihii uu guriga ka tegay mas-uuliyaddii ay ka baqaayeen ay dibadda u baxaan oo ay banaanka ay galaan beerta maxaa kula talin lahayd aniga ahaan waxaan kula talin lahaa dumarka aniga ahaantayda fikirkayga inay dulqaad badan muujiyaan ay u dulqaataan hooyada waa mar walba waxaa looga baahan yahay inay dulqaad lahaato ayna u sabarto reerkeeda okay daawada ayaa ku jiro daawada kusoo dhawow barnaamijka arrimaha qoyska burburka qoyska adigoo ku bilaabay magacaaga iyo meesha aad joogtid okay waxay isu golaal daawadaha hore daawadaha cabdi حمدي كسو دو قلنجو داودة وانو قادنا شرفه مثل مد ايان هودا كوسو مرننا فكر البرنامج كان رماء قويسكا يا صاحبو فكر كيغا هرتا دانبي تانو حانك لبضب صواب tusaale way qaldami karaan labadu way isku dhici karaan waayo wax laga carabiyo labadiisa daan ba isugu dhawo way isku dhacay laakiin xala haddii la isfahmo oo maxay ahaydeen mid waxaan ku wari fikirkiisa oo laga maxaa waxaas ku dhacay oo la isweydiiyo sababta waxaan ku yimid صح gurigaas burburi maayo bulshada inta badan waxay tirahaa waxay isku qabtaan labada qof una daryeeli waayo war nagama hayo kuwa kalena waxay dhahdaan maxay ahaydee lacagtan yadda waxaan caydhan laga sheekeynaya ayaa la isku qabsanaya laakiin haddii midba intuu hayo la isku geeyo oo maxay ahaydee maxay gacmo wadajir wax ku gooyaan baa la odhan jiray inta laysu keeno oo midba meeshuu hooyadu waxay ka fikirtaa meelo badan oo guriga ka daloolay tiraha waxaan ku awda halka sidan dhe carruurta waxaasay u baahantay guriga waxaasuu u baahan yahay maasha allah ninkiina wuxuu leeyahay muxuu bay guraysaa maxay waxaan ku dhacayaan oo wuxuu moodaaba waxay inay iyada gooni meel u dhiganayso ha isfahan waa gurigiisii baana loogu hagaajiyay gurigiisii carruurtiisii bay hooyadani ka shaqaynaysaa waa gartay qalanjo dad badan ayaa qaba sidaa ka dhawaajisay waxa la yidhaha agreement ama heshiis labada qof ama dumarka iyo ragga ay labada lamaane ay heshiiyaan kuna heshiiyaan ama dhaqaalihi ha noqoto ama qaybsan mas-uuliyadda guriga hadday ku heshiiyaan waa wax iyagu ay iska leeyihiin marka wax dad kale ay u dhigayaan waa wax gurigoodii ubadkoodii un ay u hagaajinayaan
صح marka in la iskaga hor imaado oo la yidhaahdo waxaas u dhaceen iyo maxay gabadhan sidan usoo samaysay maha in saas la sameeyo waxa weeyaan in la isfahmo oo labadan qof haddii xataa ay isku xanaaqaan oo meesha qalad yimaado waa in mid haddii xataa kulayl yimaado way jiraan dad isku dhaca inta badan dee guurkii waxaan burburka keenaya waxa weeye isfahan waaga guurkan degdega ah ee markaba la isguursanayo in laga fiirsadaan anigu odhan lahaa laga fiirsado isfahankuna wuxuu ku jira kalsoonida maxaa xal marka qalanjo xal arrintan waa soo badbadatay caruur badanaa beerta galay caruur badanaa mustaqbalkooda ku lumay maxaa xal burburka qoyska fikirkaaga adigoo soo koobay gurigiyo arrinta dib ha loo eego alla kala dambeeyo alla isqadariyo gabadhu waxay kaa mudantahay waa inaad ogaataa ninkuna wuxuu kaa mudan inaad ogaataa waad mahadsan tahay daawade badan ayaa qadka ku jiro daawadaha kala waa ku macaado saaxiib soo dhawow ayaan ku leenahay dadkana daawanaya oo gadaal uga soo biiray barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay burburka qoyska waxaa naga soo wici kartaan halgan taagtutu scape-ka iyo maxaa qadadka fiberka iyo taleefanada kor ku xusan sidoo kaleeta waxaa nagala socotaan idaacadeena voice 99.3 waxaanu idin leenahay subscribe ha iloobina haddii aadan halgan friend isla ahayn waa inaad like-ta ku qabataa iyo weliba share-ta si aad noola wadaagto barnaamijyada xiisaha badan ee soo socda hallo dhagaystaha ku xiga adiga oo ku bilaabaya magacaaga iyo meesha aad naga soo wacayso walaal magacaygu waa axmed salaad oo faataxa ku magac dheer oo joogo wadanka Mozambique maasha allah soo dhawow aad baan u dhawahay haddana barnaamijka usii gudagala aad baad u mahadsan tahay waxaa keeni kara burburka qoyska sideeda waxa weeyaan markii guurka la dhiso waxaa wanaagsan in kalsooni lagu dhiso kalsooni haddii jira meesha waxaa imaanayo burbur guud sax marka waxaan leeyahay sideedaba guurka waxa walba waxa weeye runta baa lagu dhaqaa dulqaad hadday meesha oolin waxaa imaanaya burbur iyo dayacnaan waa sax marka waxaan leeyahay marka waxaa wanaagsan in runta waxa weeyaan runta wax walba haddii runta laisku sheego ay sibeyn jirin waxaa imaanaysa kalsooni dhab ah waa runtaa sax marka waxa weeye waxaan leeyahay marka kalsoonida hala badsho yaan been la sheegin oo guri wax waa aada muhiim waa marka waxa weeye been haddii la sheegay waa meesha waa waxba noolaya waa runtaa fikirkaaga maxaad kula talin lahayd maadaama ay arrintan soo noqnoqotay oo marar badan welibana soomaalida haddaynu nahay qurbaha ay faraba-an ku hayso maxaa kula talin lahayd dadka qoysaska maxaa kula talin lahayd aad baad u mahadsantaa waxaan kula talin lahaa marka koowaad sideedaba qoyska waxa uu u baahan yahay dulqaad wax yidhaahdo dulqaadna haddaysi jirin waxaa imaanaya burburkun waxa weeye waxau keeni kara kalsooni darada hadda wixii xaqa ilaahay wixii wadadii toosna haddii lagu dhaqmayo kalsooni wax walba oo imaanaysaa marka waxaan leeyahay ku kalsoonaado been meel ma gaarto wax walba guryaha qoys waxaa burburiyo beenna waxa weeye soomaali waxay tiri beenuraad ma laha maasha allah sax marka waxaan leeyahay beenta hala joojiyo marka guriguu dhaqmayaayo guriguu degaya marka waxaan leeyahay wax walba marka burburka waxaa keeni kara been haddiisi meesha oole waxaa imaanaysa kalsooni dhaqa labada qofood inay isku kalsoonaadaan dhibidhek wadaagaan oo wax walba ceeshka ay wadaagaan wax walba kalsooni baa imaan kartaan leeyahay maasha allah aad ayaa u mahadsantahay fikirkaaga saliimka ah waxaanu ku leenahay soo dhawow okay aad baad u mahadsantahay waan dhawahay daawadayaal meesha halkaa naga daawanaysaan waa halkan TV iyo raadiyaha codka shacabka ama Voice of Oslo Voice of Oslo FM carruurtaasi waxaas beerta galay waxaa keeni kara kalsoonida aabbaha daawade marka hore magacaaga iyo meesha aad joogta adigoo ku bilaabaya soo dhawow waa mahadsantahay saaxiib fikirkaaga saliimka daawadayaal waxaan ku nasanaaba haystii heybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haddana farsamayaqaanka aan ka codsan haystaas
وهاي داوديال سو دواada daawadayaasha gadaal ee nagala soo qabsaday waxaanu leenahay share like hadii aad friends la ahayn ama aad subscribe ahayn marar badan ayaa waxaan weydiisan subscribe maxaa dhahnaa micnaheedu waa page-ka kor waa inaad subscribe hadii aadan ahayn si aad ula socoto oo u hesho live notification aad u tiraahdo like waa inaad ku qabataa waana codsi ma ahan xoog ayaanu idin leenahay daawadayaal soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad هلو مركنا داودها حاجة قد كأوقات وبوحة وكذا نصينا هلو داود كسودو برامج كارمها قويسك هذا هو كبلا مجا ماشي أجتون عليكم السلام ولا عدك على كرم قاضي كتب هذا هو رالع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxaan joogaa waddanka Shiinaha joogaa gaar ahaan Yatagori kusoo dhawo barnaamijka magacaygu waa Khadar okay fikirkaaga gudub walaal fikirkayga waa horta waxaan oga kala hadlaysan kolay dadka isfuray iyo waxyaabaha aan ka qadiray shaqeeyo horta midoo xaqiiqda ay calafka wax calaf soo dhamaado waxaan calafka muhiim كوبيود من والبوحية كو قرن مسؤولة نمبر سنة تنادي أسكول هاي الدين الله هو من كل مشين كذا تكتيم أول شيء قرنا صح اوكي صح ما كان الله وحضر ما كان يأتي كذا يبدو بعتنا ويجي جتاعي بدي أقول بدك يسفرنا أو حنا كذا أنا كارو جعيش بسمين ما صح أكون مع سنتاي أكون مع سنتاي أبا كو هذا بدنا إن كان أقول لسه قرأت على هذا ما شاء الله وارثها هلو 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 مركنا داودا حاجة عن سينو هلو سودو مقعد إيميش أنا قصوا عيسو هلو هلو البرنامج كوا جبا أيو مرايا وقعد يعني وحنا أنتي كسو قيب قلي ويسي وحنو سيندونا فرصة دنبه مركا هدا وحن لنا داودا أو دنبه سودو ولا المقعد إيميش أنا قصوا عيسو ليلى أخي سوا على سويدن ما شاء الله ما أنت سويدن يا أدنى وبدن ملاذة سويدن حين كأقول بدن سما ولا ما شاء الله سودو ولا الفكر كأجا سليم وأنا لسعت برنامج كسيدان في لايف أنا لسعت برنامج ما شاء الله هراي وقلب أنا بوحنا لا هاي راجل الضمر لا اسمه دامو بيرتا هو الجيران ما شاء الله هذا هيا waxa weeyaan ragina waxay saarayaan dumarkii dhibaatada amaguna waxa saaraynaa ragina waxay leeyihiin dumarkii baale yani intuu waa la leeyahay faraha ilaahay ma simin laakiin waxaan oran lahaa qoyska jooga maraykanka qoyska jooga dadka jooga maraykan yurub meel kasta ee awlaadaha laga qaadanayo ee hooyadii marka beerta geliso ee aabihii isna beerta gelayo السكوت قطع أولادهم هلا يناشطوا ساعات هو دمارها لكن المهم مستقبل في سمو دمار صح واي
marka insha Allah waxaan rajeynayaa hooyooyinka dhammaantood inay awlaadooda ilaashadaan odaygu laftiisa xitaa raggu waxaan odhan lahaa haweenku way aqli gaaban yihiin haddii aad islaantaada isdagaashaan oo ka tiraadid xabiibi maxaa kugu dhacay oo kusalacdiyada ahaa xaaji adaa iga qaldanaa ku odhanaysa laakiin haddaad aad iyo aad maasha Allah wada galaya noo xilada anigu ileeyahay sidano عيدنا ضد كسودر السوق أم بينه العكر وحنا ما نسد الليل ونحرش النصايح صار أولادي لو قاضنا يا بدل كنا ولا قاض أولاد بدل ولا قاض كوانا رجنا عادي واحد لقى إن ربنا هوينك عدادي ما هو حويان إن معكو هذا الحبيب محاكو بدع الحبيب محا كذا قاعد والله إذا لفت إذا وحقولي برافين ولا ما هالسنة وين راح أراضي أبي يدي هوينك والله ولا حصل حامو ما شاء الله فكرك maxaa xal arintan looga horti karaa maadaama dadka Soomaalida ay ku soo badatay qoyska ciyaalkiina ay beerta galeen maxaa xal arintan looga horti karaa fikirkaaga waxa xal oo laga horti karaa walaalo awlaadan la qaadanayo awlaadan beerta gelita awlaadan dhibaatadu ka taagan tahay mustaqbalka ka xumaana waxa la horti karaa hooyadii iyo aabbihii oo kalsooni isku qaba oo lacagta yara xuna cayda marna reerkooda loo diro marna reerka kale loo diro baaqti waa soo kacay haddii kalena ay intoodii caruurtooduna ay gurguriyaan ma aha in ay tiraahdo ana kiisha haysana ana ka haysana kaagana ku soo dartay haysa ma aha waxayaan hadduu wada waxayna adigu aad maadalka haysid oo marka hooyadaada waxay saarta dhigto baan la soo sheego waayo inay ku qaadanaysaa lacag waxay iyadii baa qaadanaysaa isaga hadduu mamacay bulbalo xamaas qof wax la'aan ma jirto ayaan leedahay waa ka walaalo quruxsan oo shimiishka xidho carruurteena waa qaatay ayaa laga hortaga laakiin haddii la soo xirtamo la dilo habeen walba oo ilmi yar ama soo dacoodo carruurtan laga hasuuda tahay wallahi aad iyo aad waxa kaliya oo muhiimka ah waa awlaadda adduunkan waxa way wax walba haddii aad haysato xataa waxa way awlaad waa nimco Ilaahay siiyay bini aadamka mana la heli karo marka waxaan kula dardaarmayna dhammaan waalidiinta in ay iska ilaaliyaan isqabqabsiga dhexdooda ah adigana fikirkaaga saliimka aad ayaa ugu mahadsantahay daawade anigana waanu ka qaadnay waxaan soo gaarnay barnaamijkeeni gabagabada barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamijka arrimaha qoyska burburka qoyska maxaa sababa burburka qoyska maxaan ku hortagi karnaa oo caaw ku falaqaynayna halkan aniga iyo walaashin jamaad barnaamijkan dad badan sida naga soo codsaday inaan arrimahan ka hadlano sida la socotaan carruur badan ayaa mustaqbalkoodii ku waayay marka barnaamijkan ma aha markii koowaad waa barnaamijyo badan insha Allah kuwa kale xiiso badanna waan soo deyn doonaa subscribe halgan TV haddii aadan friends la ahayn si aad u hesho live notification-ka okay waa mahadsantahay jamaad waxaan ku soo gabagabin doonaa heestii Axmed Seki oo qaaday Masir oo farsamada noo hayo farsamayaqaankeena Shaafici iyo Maya Mooge sidaas ayaan ku dhaafayna dhamaan sidaas iyo waxaanu idin leenahay nabadgelyo iyo mar kale heestii waa Masir Axmed Seki aniga waxaan dhihi lahaaba heestii beerta lagu wada jiraa beerta lagu wada jiraa Sidii madaniyo gabkii ma muuqay
waxaan ugu dhan barnaamijkeenii burburka qoyska oo aad kala socoteen halgan TV waana ku xunnahay waqtiga oo aad inoogu yar aawadeed iyo iyadoo ay inoo tahay xilli dambe waanu isku soo noqon doonaa mar kale waxaanu idin leenahay habeenku ha idin macaado farsamo yaqaanka maya mooge iyo shaafici muxudiin oo asagana nagu soo biiray gadaal naga soo galay barnaamijka iyo maxaa lahaye cabdinaasir iyo jamaal deemalluun waxaanu idin leenahay dhammaan habeen wanaagsan sidaas iyo nabadgelyo nooli kulanta